بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو جنرال سعد عمر وتليها بوليسكا قيبت الجوديكور كبنادر. وعنا رأساك شعب كنا لو ذهبوا يوم مدى الصوماليين نيوز أما أخير دقدقة هو بان إن شعب هو يفتينه هدانا هاي بوليسكا الصوماليين إذا كبوليسكا الصوماليين وحصار المسؤولية خاصة مثل قول كبنادر وحصار المسؤولية كوين مت شخصي وحصار مت مسؤوليات أو سركيلات أو عيدان أو وباهن إن حلنه وحول بق ونبتجيدا درada dalka u keenaya qaasatan gobolkan sidaa darteed maantay ma doonayno in qalalaasta ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ma doonayno in dib dambe lagu soo laabto oo loogu soo laabto dagaal iyo aragti kala duwanaansho xabad wadata oo aan u qalmin qaranka Soomaaliya inay dib ugu soo laabato ما اللي أكرته إن برلمان كصوماليا وأنا أعرف شرفتي سياسي إن ورديو إن صاحرة أما صدلو برلمان كصوماليا مانتي وحن حكيني كلهم كي أي رهاين وحنو حكيني وحلو بهاي وح بوبة ولا بوبي إلي سبعين يسفهم سياسيا للجارو برلمان كصوماليا أنا وحن ليه هاي أفر سنوات شوكتين أفرتي سنة وين كنا معتي والدين صاد دورتي دور شد بولابتا تجاني ديني إيو دتك أدين صاد دورتي دب كرسوني ويديست كدب إمالة أدينك وحلالة ودور صاد دورتي أدي ورق صاد دورتي حك فكرين إن هذا وحبوبته أو أد وحكررسته وعذيرك تا وقتك يخرجك يرفعك أكو بحنيس أنتاس إن dadkaagii ula laabato kalsooni soo wadiisato markale amniga gobolka Banaadir aniga ayaa ka mas'uul uga sareeya muxaarad iyo mucaafid qof walba oo Soomaaliya waa inuu amni ku joogaa kama shaqeey karo qalaaso kama shaqeey karo hebel ku dul kama shaqeey karo waxaas u dhan gurigiis nabad inuu ku joogaa businesskiis nabad ku joogaa magaaladiis nabad ku maraa looma baahna baabul dagaal qof walba oo uu haysta oo rabo inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa ma dhici karto inuu isticmaalo mas'uuliyadaas ana u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir ciidamada qalabka sida ma kasta yihiin meel walba ay joogaan waxaan u baahanahay midooba cadowga midooba cadowga waa argagixiso wadanka hal cadow leeyahay iyo cadow leeyahay keenig hebel ku dul difaac inta ka soo gal inta ka gal magaalada hal dumiye waa dhamaatay noomo waxaan u baahanahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka Soomaaliyeed ka baxaan qalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaag 15 bilood oo la korashado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno waxa loo baahan yahay in mas'uuliyad wadareed la qaato laga wada baxo dhibka siyaasadda laga heshiiyo nabadda wada noolaado ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa wadanka mas'uuliyadiisa inuu qaato dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo teendada furan shirkiga furan nabada furan hal lagu laabto hal lagu soo kala goosto waxaan u baahanahay siyaasad midaysan siyaasiyiinta hadda tihiin inaad wadanka qaranka dantiina ka hormarsan dadka qaranka loo baahan yahay looma baahna inaad hub isku arursataan looma baahna inaad tiraan hebel waa dhintay hebel waa dhacay hebel waa inta aqliyaa loo baahan yahay maanta aqliyaa looga baxaya haddaadan aqli haynin awoodda ciidanka iskale amniga ciidanka iskale mana loo baahna in qalqal la geliyo mana loo baahna in lagu xadgudbo dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorasho loo baahan yahay ninkii la doorto doorasho kala raadso wax xoog ah iyo wax
hagardaamaa iyo dib in magaaladan difaac looga galo oo daariheeda la dumiyo ma dhici karto. waxaan leeyahay mas-uuliyaddaada qaado mudan ra-iisul wasaare, kana soo bax, waa ku filan tahay. kuma baahna inaad meel fadhiisato oo wax lagu meeriyo, waa adiga inaad wax meerisaa. jawaabteyda waxaa leh ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka jawaabo, gacan adag ku qabto, mas-uuliyaddiisa qaato, dalkana xasilooni siyaasadeed u horseedo. cid kale hadday ka jawaabto waxay noqonaysaa haliska daba wareego. marka waxaan leeyahay mas-uuliyaddaada qaado. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan la hadlo wasiir dube dadkaaga dhinac ka raac. wax lagu soo dhiibo dambe ha akrin. waxaad akhrisaa wixii dalka dan ugu jirto, waxaad samaysaa wixii dalka dan ugu jirto. intaas ayaan kusoo dhammaynayaa. wabillahi tawfiiq.